waxa kale oo xusid badan oo buuggu ka hadlayay waxa weeye markii la soo gaaray 1969kii oo wadanku uu aadka u qalqalsanaa oo la diyaarinayay afgembiga wuxuu yiri siyaad barre saraakiishii ila midka ahayd nima maalin buu la shiray nima maalin buu ka soo waday oo ka soo wacay meeshii uu fadhiyay dalka dhan baa ku faafsaneen buu yiri Cabdullaahi Yuusuf markaas wuxuu sheegay inuu gobolka kamid ah Soomaaliya maamulayay marka wuxuu u wacay buu yiri sidii saraakiish kale u wacayba wuxuu yiri gaari yar oo ay qaataan saraakiishu asagu wado markaas waa taliyaha booliisku marka taliyaha xoog dalka waa marka taliyaha sargaalka ugu sareeya ciidanka waa markaas siyaad barre aniguna waxaan ragga ku hoos shaqeynaa gobolada haysta deegaanada dhan baa haysta buu yiri wuu yimid buu yiri gaari ugu qaaday wuxuu yiri xamara ka baxnay dhankaasi afgooyaan aad muu yiri ilaa afgooyaan ka gaareen wax iga sheekeynayo burburka ka jira dalka musuqmaasuqa dhibaatada waxa taagan in loo baahan yahay in talaabo la qaado in ciidanku loo baahan yahay in dalka badbaadiyaan aniguna wuxuu madaxa u ruuxayaa waa sargaal iga sareeyo u dhahay waan soo laabanay wuxuu xamar baan mid buu yiri xamar markaan mid hadana wuxuu tabtii ii sheekeynaya wixii oo dhan dhibaato ka hadlaya xamar markaan mid hadana balcad baa tagno hadana inta soo gaari asaab wado yiri kabacdi uu soo laabtay yiri kabacdi gurigii horkeenu markaas wuxuu yiri Cabdullaahi dalku xaaladiisa waan ku sheegay adna wad ogtahay maxaad ku talanaysaa markaas wuxuu yiri intaan salaan military wuxuu yiri isqalajiyay ama waxa yiri taliya anoo waxaan askar military waxa loo baahan yahay yiri mataqaana siyaasadda in ay u diinay siyaasiyiinta anuguna aan xuduudaha dalka aan ilaalino iyo qatarta gudaha marka wuxuu yiri ma filayaan inuu yiri in anaga boos nooga baahan yahay hawshan markaas wuxuu yiri deg inkaar baad qabtaay salaantii baan ugu celiyay markaas wuxuu inta salaan si qurux badan u salaamay waxa yiri aniga adiga qofka inkaaran waqtiga sheegi doonaan ku yiri kabacdi afgembigu ka sheekeynaya sidoo dhacay iyo maalmo gudahood ninkii madaxweynihii la dilay wuxuu ka sheekeynaya qaabka madaxweynaha loo dilay iyo inuu asoo Hargeysa ku soo sagootiyay dhankaasi waa qodobada kale oo uga hadlay waxa kamid ah oo aad ku xiisaha badan 1964 markii xorriyadda qaadanay 4 sano aan jirno wuxuu yiri Itoobiya duulaan ku soo qaaday Soomaaliya maxay leeyahay Itoobiyaanku wuxuu yiri waxay u sheegi jireen reer galbeedka inaysan Soomaaliya siinin madax banaani oo ay qatar ku tahay iyada waxay u soo jeedin jireen laba talo Yurubiyaanka in ay ku haystaan oo Yurubiyaano wadanka inay haysatiin oo wadanka sii gumeystiin Soomaalida iyo inaad anaga nagu soo wareejisiin qodob kale Itoobiyaanku ma ogolay marka wuxuu yiri Itoobiyaanka waxa lagu sirsiray Soomaali galbeed ayaa la siiyay waxaana loo sheegay in Soomaaliya jamhuuriyaddu ay noqonayso dal madax banaan Minilik oo markaas boqorkii aaga haystay ama Itoobiya haystay wuxuu yiri duulaan ku soo qaaday Soomaaliya 1964 waxaan jirnaa 4 sano Itoobiya waa boqortooyo weyn markaas oo in badan jirtay oo dhaqaale naga badan naga ciidan badan naga dad badan wuxuu yiri dagaal waxaan galnay difaaca marka wuxuu yiri anaga waxaan saaciido yiri Itoobiyaanku wuxuu yiri ciidanka aan haysano xog waxay hayeen biiro ka badan anagu wuxuu radaa haysanay 10 kun oo ciidan waxay aaminsanayeen biiro xog waxay haysteen biiro sheegaysa inaan haysano 20 kun oo ciidan marka wuxuu yiri xogaa baqdin baa ku jirto yiri waxa kale oo dagaalka isbedel ku sameeyay dhahay Itoobiyaanku waxay ogaayeen inta hub aan haysano inta nooc hub aan haysano waynu soo diyaar garoobeen laakiin wuxuu yiri maalmo kooban dagaalka ka hor ayaa masaaridu waxay soo gaarsiiyeen biiro hubka casrisan hubkii aan haysanay furmihii dagaalka Itoobiyaanku waxa lagu weeraro lagu baabiyay hubkii wuxuu yiri cusba markaas wuxuu yiri hadana dareemeen biiro inay qalad haysteen waxay moodeen biiro inay haysteen xog qaldan marka saasi hadana wuxuu difaac noqon galeen biiro adigu dagaalka meesha uu shaqtarada badan ayaa ugu quruxda badan waxa weeye wuxuu markii heshiiskii la gaaray oo yuunkuna dhexaadiyeen anagii wuxuu yiri Itoobiyaankii ayaa aniga dawladii aadan cadda waxay xirsartu yiri inaan noqdo qofka saxiixa ee heshiiska gobolka Gado ayaan difaac uga jiro yiri halkaas aan isku nimid biir sargaalka Itoobiyaanka mataliyay anagii wuxuu yiri sargaalka Itoobiyaanka wuxuu yiri waa nin 60 sano ku dhow yiri 50 iyo 2 sano jir waa uu dhahay garaadaha wuxuu yiri wax wataa garaada sare garaadaha waxa u dheer buu yiri waa sargaalka Itoobiyaanka ee biladaha uu ku guuleystay xabadkiisa ku safan anuna waxaan yiri wiil yar oo 32 jira oo wuxuu caata ah oo wuxuu yiri suuqa ka weyn yahay kabo ka weyn yahay shaatigu ka weyn yahay koofida birta ee madaxa ay saaran wuxuu iga yartahay marka meeshii isku nimid baa wuxuu yiri sargaalka wuxuu yiri ninkii la dirirayay wuxuu difaac uga jiri Gado ma ninkan buu ahaa markaas ma leeyahay ninkan ma ku dirirayay aad buu wuxuu ila yaabay yiri heshiiskan saxiixin yiri taas waxay cadeynaysaa uu leeyahay Koronel Cabdullaahi Yuusuf in Soomaalidu ay si kasta uga yartahay Itoobiyaanka ay ka birlabsan tahay oo ka adkaysma badan tahay dhinaca dagaalka marka laga soo tago 64 Cabdullaahi Yuusuf wuxuu buuga ku xusayaa taariikh kala weyn oo 77 wuxuu sheegayaa ciidanka 77 loo diyaarinayay inaysan ahayn ciidamo u diyaar ah wuxuu leeyahay rag darajada lagu siiyay qaab musuqmaasuq ah ayaa dhulka dhan haystay buu yiri oo dalka dhan maamulayay
markii siyaad baro ogaadi inuu dagaal dhaba galayna wuxuu wacdiyo raggii daraakiisha ahaa ee wuxuu yiri darajada saxda haystay wuxuuna noo soo kiciyay fadhiga ka soo kiciyay Cabdullaahi Yuusuf Axmed aniga iyo wuxuu yiri waa Cabdullaahi iyo Janaan Maxamed Faarax Ciidid wuxuu yiri markaas ciidankana la ka saaray oo hawl kale noo dhiibi jiray korkana la ka ilaalin jiray dagaalka markaas wuxuu yiri 77 ayaan u diyaar garownay wuxuu yiri 77 wuxuu yiri duulaanada qaadnay wax guulaysan yiri Soomaali galbeed aan qabsan yiri waxa xusud mudan ay jirto biso aad u qosol badan oo ku jirta dagaalka saddexdiisa wuxuu yiri saa Itoobiyaanku u jabinaynay aan waxaan ka dagaalamay dhinaca gado على سمطر wuxuu hogaaminayo dhinaca caas iyo Somaliland dhinaca Hargeysa ku soo socday dhinaca Jigjiga ku soo socday anigu waxay marka ciidanka sa u jabinaynay hal meel oo qabsanaynay hal meel ugu siiskanay waxaan ku gaarnay ciidan Itoobiyaan meel buuro saaran buurtu wuxuu waxa ka sokayso meel barxada dhul barxada ka sokayso banaan oo ban ah ciidankii oo wato gaadiid iyo lug ayaa wuxuu aan ku duruuray gala kabacdina wuxuu yiri ciidankii buurta saarnaa askartii way dhameeyeen waa baabiyeen biyo dhaawac iyo dhimasho gaarsiiyeen markaan ogaado yiri inaan meeshan gali karin ayaa waxaan dalbado yiri dalab ama gargaar dhinaca xamar salgii dhexe xamar waxaan ka codsaday dawladda in la ii soo diro wax ciidankan baabiin kara sida diyaarado oo kale ama madaafiic wax aan ciidankan baabiin kara kabacdina wuxuu yiri saa u sigo yiri dalab ama wixii gargaar waxa ii mid biro nin baab ah oo xiri gaaban oo xiri aad wuxuu yiri aad u murad fiicnayn darajo aan garbihiisa ku xirnay ugu cusub buu yiri kabacdina waxa uu yiri anoo la yaabano wajigii laga dareemayo inaan ka yaabanahay ninkan wuxuu yahay waxaan yiri maxaa dahay markaas wuxuu dareemay yiri in aan yasayo ama aan la yaabay aan filan waayay in qof noocaan aniga la ii soo diray soo ciidankan anigu aan wax ka qaban waayay wax uga qabto kabacdina wuxuu yiri magacayga waxa weeye Bare Aadan Shire waa Bare Aadan Shire Hiiraale oo markaas midha cusub oo aan darajo xitaa lahayn garaad xitaa qabin markaas ma wuxuu yiri magacayga wuxuu u sheegay magaciisu ii sheegay Bare Aadan Shire la yiraahdaa buu yiri waxaana uu yiri ninka loo xil saaray soo dhol cadaan la kaftanaya ninka loo xil saaray inuu ka taqaluso ciidanka adigu ka taqaluso weys meesha dhol cadii waa qosol inuu yiri waxa uu yiri hawshaada qabso kabacdi waxa u yimid buu yiri waxa kabacdi waxa soo gaaray yiri madaafiicda goobta oo wuxuu oo asoo ka soo horreeyay kabacdi wuxuu hubkii rakibtay madaafiicdu rakibtay rag buu u dirsaday meeshii ciidanka ay joogeen telefoon lagu wada hadlaya cabir baa lagu jira xisaabaad baa la soo shanaya buu yiri kabacdi wuxuu yiri hal mar buu saf madaafiicdu ugu riday buurti markii wuxuu ku ridana wuxuu yiri raggii buu wacay kabacdi wuxuu u sheegay inay wax qaldan yihiin kabacdi intii qaladkii baa la saxay kabacdi mar kale uu riday kabacdi waxay sheegeen inuu sax tahay markaas wuxuu ciidanku waxa uu yiri inay min shan baalo tiridan mid walbaaba buurti wuxuu yiri markuu ku riday wuxuu yiri madaafiicdii mar dambe wuxuu yiri hal fuuq kama soo dhicin marka u tagnaa wuxuu yiri ciidankii gelin waxa uu tagnaa ciidankii wax dhintay iyo wax dhaawacay Itoobiyaankii oo wax dhintay iyo wax dhaawacay wax carray noqday marka wuxuu leeyahay Bare Aadan Shire Hiiraale waxaan filayaa ninka dadka farkutiriska oo buug ku amaanayo yani inuu shaqo adag qabtay oo Cabdullaahi Yuusuf Fakirayo